العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، أخواتي الأعزاء، ساد ميشن وجه الدين وحان هوريا العاوة أما مانتا waxay ku xirantay adduunka meesha aad ka joogtid. faallo ku soo baxday shabakada mareegta la yiraahdo somalitalk.com oo maaragtay shabakad runtii isku xil saartay difaaca badda Soomaaliya. waana bil xaqiiqatan arrin u baahan in laga barto qofku inay shabakadu leedahay mowduuc khaas ah, mowduucaasna iska daba gasho. nina hadda ka hor kutubkiisa waan ka akhriyaa isagoo dhahay qof walba wuxuu gaaraa meel aad iyo aad u sarreysa haddii uu mowduuc intuu doorto uu iska daba taagnaado. ninkan iyo qolada maaragtay isaga la shaqeysa inaan aqaanan u malaynaya Minneapolis aan wada joogi jirnay 10 sano ku dhawaad ayuu mareegtan iyo waxaan waday markii heer sare ayuu ka gaaray qoraalo fara badan iyo dokumentiyada iyo wixii sida isugu dubridin marka aragtid waxaad arkaysaa waxaan inay yihiin wax oo hal qof uusan wadin oo mujtamac dhan ama dad fara badan ay wadaan oo heer gaaray ujeedaan sidaas waay. marka arrinta noocaas oo kale oo ku bogaadinayna annagana mid ayaan maaragtay waxyaabo ayaan ku aragnaa aanan maaragtay khaldan waa muujinaynaa ayadoo ay naseexa ku jirto san kuleyl ku jirin, xanaaq ku jirin, xadgudub ku jirin, la dulma اليوم oo laguna gardaroonin asagana aan haddii aan ku aragno dulmi aan maaragtay ka qabanayno wadadaas ayaa walaalayaal waxa lagu gaari karaa in lagu gaari karaa sacaadada adduunyada iyo midda aakhirada labadaba taas ayaa lagu gaari karaa. wadada arrintan horaan usoo sheegnay haddana waa ku celinaynaa. garwaaqsiga waa waxa kaliya oo erayga usoo dhawaayay fi sabiilillah, macnaha wadada ilaahay erayga usoo dhawo Soomaaliga waa garwaaqsi. waa garwaaqsiga macnaheedu waxa la yiri waa ilaahay Soomaalida ilaahay waaqay u taqaana diinta ka horaan u malaynaya in erayga la isticmaali jiray oo magaalooyin waa jiraan san hore usoo sheegnay abud waaqo kaleeto. marka waaqsiga waxa waay يعني garwaaqsigu wuxuu lid ku yahay nidaamkan la yiraahdo maaragtay يعني nidaam kale toon marka laga hadlo doono oo ah rabbi ka baq iyo rag iska celi meel mooda galaan bil xaqiiqatan waa wada galaan. marka wuxuu shalay ay qoraan oo taariikhdu ay tahay maaragtay sa halkan ka arki kartid October 22keedii 2011 maqaal ay qoreen, maqaalooyin fara badan waa qoreen. marka maqaaladahaas khaladaad aan qorqaadkaas muujinayna horena waa muujinay haddana waa muujin doonaa maaragtay waa sidaas waay. marka maqaalkaas ciwaankiisu wuxuu ahaa baarlamaanka dowladda federaaliga ku meel gaarka ee Soomaaliyeed oo qodobadii sida ujeedid badda ee horay u soo saareen ku soo daray qodob dhul badeedka mujeeda. halka waxa ku qoran oo laazim tahay inaan fahno waxay yiraahdeen waxay ku soo dareen halka mujeeda qodobadii hore ee badda oo ku soo daray ku soo saareen ku soo daray ataasa waxay ku soo dareen qodobay ku soo dareen. marka halkaas waxa marka ugu horeysa ikhwati al-aizaa laga dhadhansanaya in baarlamaanku oo qodobkii hore uu soo saaray oo qodobo kale ku soo daray oo hore ugu jirin. anagana waxaan rabaa inaan xaqiijino in baarlamaanka qodobada uu soo saaray inaysan wax qodoba oo dheeraad aan lagu soo darin ayna ku jireen bil xaqiiqatan hada dokumentiga akhrisid oo halkan hada fiirisid dokumentiga meeshaan dokumentiga hada fiirisid dokumentiga intaan u gelin waxa fiicnaan lahayd inaan fahno halkan waxa ka muuqda 12 mayl iyo saxiixaasna waxa saxiixay ee la yiri ninkan la yiraahdo Cabdiweli Ibrahim Sheekh Mudey oo ah kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka ahna gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka. xaqiiqatan ikhwati al-aizaa inaan fahno ay dokumentiyada saxiixa Soomaalida waxay ka qabtaa asaasay ka qabtaa oo ka walwalaan xana kilifay waxa waay maaragtay dhul fara badan laga saxiixday odayaal oo ay kamid tahay Soomaaliya galbeed iyo NFD. marka meeshii lagu arko qof dhul iyo wax saxiixay arrinta laga hadlayo dhul iyo bad ay tahay iyo maaylo waxaas
قفل بوا عبس جليا وحسري أما دالك خيانيس بالحقيقة أنا أرنت سداس معها oo maaragtay waxa la yiri maaragtay hadda anaga kuma tilmaamayna ninka aanu nin furtay yahay laakiin sida caadada ah waxa loo baahan yahay inaa wax hubsatada loo baahan yahay ha fatabayanu waxa la yiri cadaysta marka hore sababtan maxaa waay an tusiibu qawman bi jahalatin ina dad idinkoo maaragtay aanan aqoon buuxa arrintii ka samaysan aad iska haleeshaan iskaga dhacda fatasbihu ala ma fa'altum bacdina aad waa bariisataan idinkoo ka shalaynaya waxaad samayseen فتصبحوا على ما فعلتم حيات سميسين دارتنا تكوا بريستان نادمين إذا كشغلينا أنا جنا تعسان سكيل علينا ولذلك يعني مركو هو الرسول وحن ماشي كسارينا ظن سو إن كان وحوض إن وجدوين كلام في عيننا نكوض ولا ماشي وكسارينا كاسن وحن وضينا إلى آخر كا موجودا إن كانوا عن اعتقادنا سدوا الشيء يعني ها مالكتي أو حديث وحي حيدي إنه ملاينيا إن محلي هذا قفكه نحن نحكم بظواهر قف وحا وشاغني وليه وضع يعني كسلينينا كوني جانغويننا وحان ميشان كشي والله يتورى سرائر وحي قفكا سو قرصونا إلهي يتولينا يعني انتاس نوران سو شاغني واي اري ان جعلنا واي حدنا مره بني تولي معني وحا واي عدا وحان كمسؤول واي من هذا كور وحو يير هورنا او سو شاغي وحيرو معربوني ولكوا صوخليغن خوغا يران كا قانا مدة دheerان ku noolaa dalkaas معربوني وحير ولكوات وقوانزا ذاتك وهري هاي نوري واللي توالى تنزانيا وتنزانيا توالي يوري تولي معني وحوا قفك كقعضو طلبه سجع ترى كما دنبيستا عليه لكن الدون كان إلهي سجع اسكال طلبه كما دنبيستا موجود يعني قفكنا قيب كل هاي وحلل ولكل وجهة قادات كلام وحوا وجهة اللي أما يول أما فول واي ميلي وجيدان موجود هو فول كاسنا موليها أي موالينها هي أو وضعي موجود مركا تولي جوا إسكان نوعاس وكلا تواي مركا ولا قطعا هذا عن نوجو مجرد برنامج وحن كبقى يا مركا هدان برنامج كاس أنا أدنو إني هولا كلا نوجو أنت لكن ولا قطعا هذا أخرجت وحيابها كاركترت وحكم ذا إن تد أقون ولا قطر وأن رجع أولسين الوحي الصومالي توقع مدة قريسي وأن علمي كسر اثنين من بدن وحي قرايين وعلمي عن كسر اثنين وحنا كم إذا تنا كم إذا هالكان ماشي وهو الرئيس قران هالك وجدت حكم وضع إن حلي رحلة لبي 8 مايل مايا يا كم وضع إنه وجدت إن كلام كان لبي 8 مايل مايا يا كم وضع هالكان وجدت لبي 8 مايل مايا وجدت إيه هولا كلته نوعاس إيه مدة كدودين هولاس مركي لو كور قالين معها وحو وافقسن شروع ذي دلك ودك سنة سوماليا إيه شروع العالمي وافقسن أنت معها مركي نيكو إسدها وناك بعد فافيني سايو دلك إيه دتك أيا دفاعي سا أسجي أيا أبورا أيا لبعتدي جرتي أيو سيل بجبارية موجود السجن وحوس لها لبعتنا ماشي جرت كسر موجود إخواني إنا فهم نوع تاسو تحليل كسياسي مركز سميني إنه لش أردنا إن اعتقاد السد وقفك إنه وناك ربه موجود وأنا نظرية قديمة أو دينتنا معناها وحليري إن حسكو معناها حسكو إن بعد ظني إثم ها قفك مرة للربه إلا واحد يخف كوي مادانه ما لا جمر الواعي السجا مركز وحلوي دينا إنه سوا فجيو وقت الله سينا يا إنه مركز اسكول لعبته أو سجاجي مركز نكون وناك ورادني مركتي وربه إنه جارو وربه إنه دلك يدك دفاع نبقى بدنا يأبورويا سببه أرنتاس كلفة سنواتنا يوجد وحيري قضب أيا لغو صدري هالكا هايلوبينا وحيري ماركتي إن البدايات كسومالي دا إن قضب أيا لغو صدري يوجد حال لغو صدري ويري إن سو قضب أيا لغو صدري ويري البدايات كسومالي دا قضب أيا لغو صدري وعيرت برنامج دولتكم الجار كهالكان هو قضب كلوس وده مركب وحن ربنا إن الحقيقة إني أرنتاس أرنجرت أيضا هين موجودة لكن بل أن وضنه سو حقيقة نوح وله برنامجكم الجار كملخي يعني يعرف موجود برنامج حيري معركتي برنامجكم الجار كملخي يعني برلمانكم والجار كمال خياني مصة وحي وبريرين خيانة قرن موجودة
يعني وحليه waxaan meesha ku jirin ayaa lagu soo daray marka waxaan ma u sameeysan si kas ah mise waxa waaye waxaad u baraarteen khiyaano qaran oo ay ka galaan shacabka Soomaaliyeed waayo qoraalka ay gudbiyeen ayuu yiri marka wuxuu isleeyahay khiyaano qaran ayaa meesha ka dhacday madaxweynaha uu saxiixo wuxuu badda Soomaaliya ku soo koobaya 12 mayl waayo madaxweynaha si uu saxiixo waxa uu badda Soomaaliya ku soo koobaya 12 mayl marka hore waxa uu mahadcelinaynaa in nidaamka dawliga la isku mucaarado oo qaab dawladnimo wax loo wado kuma fiicnayn marka asaga inuu yiraahdo khiyaano qaran waayo khiyaano qaran eray ay adeegsadaan waaye qola aan ugu yeeray kuwa ay madax banaanida dibadda ay xoogga saaraan ujeeda indhahana ka qarsada madax banaani la'aanta dalka ka jirta oo shabaab sida socodtiin dhul nabada ay duulaan ku qaadeen oo ma shabeellada hoose shabeellaha dhexe gilgidooda ku darsadeen qaybo kamid mareeg haradheeri hadda qabsadeen mudugna oo socdaan gaalkacyo ilaa Puntland ilaa Somaliland dhulkaasna dadka ku dhaqan ayaga maaragtay dad xora oo ku raaxaysanayo xorriyadooda laakiin dhulkay hadda ka taliyaan dadkii san ka kahayaan shisheeye wataan ugu yeerin muhaajiriin la yiraahdaa dhulka ay beeraha qaatay dheheen dalal kale ay shisheeyahaas dhibaatooyin ka soo abuureen oo lagu daba taagan yahay shacabka Soomaaliya 20 sano dhibaato soo jiray waa diideen sida Siilaanyo ay qaraabo yihiin ninkan la yiraahdo isaaq gudaysleey Ahmed Gadani oo madaxda ka ah shabaab waa diideen hadii la yiraahdo inay qaataan nidaamka doorashada waxa hadii la dhihi lahaa warnamanka maaragtay nabadna waa keeneen xorriyad oo ku darayaan inuu isdoortay rabaan ama aaradina waa adigu maaragtay adna amal lama oran karo oo nimanku gumeysi cusub ay wadaan ma ogolaan la isdoorto halkaas waxa ka dhalanaysa in boqortooyo dhisaan oo ay kala xoog badnaadaan oo nabad xoogaa la iska helo laakiin waxaan Soomaalidu hore u arkin oo hore u maqlin in dib loo soo celiyo oo labadooda Soomaalidu waa baqlaay maaragtay laga cabsiyo oo dadka ilkaha laga siiyo furiyaha laga siiyo Reuters oo qorto warcad orkan maaragtay kuwa la gowraco kuwa maaragtay si kala loo galo waxyaabaha noocaas nimanka wada oo dhul Soomaaliyeed oo xor ku duulay oo xoog ku qabsanay oo kuwa kalena hadda u socda ayaga uma muuqdaan waa kuwa aan ugu macnaha madax banaanida xoogga saara waxay isleeyihiin ayaga dalkii iyo dadkii territorial and political independence يعني dalka ha madax banaanada ay isleeyihiin waxaasi u halgamayaan laakiin taas inay ka qarsanayaan wajida marka qoraalka ninkan aragtid iyo website-kiisa dhan hada akhrisidna shabakad ma arkaysid meel shabaabka lagu weerarayo ama lagu qabsanayo leeyahay warkan aad sheegteen iyo warkan iswaafajiya lama arkayo kin dawladda Afrika ka saacada bataayeen saan soo sheegi doonaan qoraal fara badan inta soo doonaa oo runtii aanan ahayn qoraal run ah hadana loo isticmaalaa in dawladda lagu mucaarado yoolka laga leeyahay iyadoo ay tahay war dawladda sax oo hagaaji war dalkaaga iyo dadkaaga difaaca laakiin wadiiqada iyo waxa uu sameeyay waa wax dhibki jiray un si balaarinayo waana sheegi doonaa sababahan uu kaliifay arrimaha noocaas oo kale taa ilaa ay hadda anaga waxaana la dhihi karaa war xeelo waa balaalo wax cad ma aadin sheeginaysa wax jiraan okay waa kana warkeena hadda ay dhigeyso marka wuxuu yiri maaragtay khiyaamo qaran miya la galay mise wax noocaas oo kale taa uu yiri marka wax taasan rabnay inaan ka sheego wuxuu yiri baarlamaanka ku meel gaarka ah October mujida baarlamaanka ku meel gaarka ah halkaas ina baarlamaanka ku meel gaarka ah October marka baarlamaanka meeshaas wuxuu maaragtay 8 October waxay codsadeen 6 qodob oo ay ku difaacayeen badda Soomaaliya laakiin waxa maanta soo baxday soo shacab baxday warqad ku saabsan warkii uu sheegaya oo hadda oo hadaayay maaragtay uu balaarinayo marka waxaan rabnaa bal inaan waad akhrisan kartaa hadaa rabtid warkii uu ku soo celinaya marka waxaan rabnaa waa kana marka baarlamaanka isagu wuxuu leeyahay 8 October waxay codsadeen waxay halkaas in ugu jeedaan umaleynayaan baarlamaanka dawladda gobolka 8 October waxay soo codeeyeen 6 qodob oo ku difaacayeen badda Soomaaliya in ugu jeedaan umaleynayaan laakiin waxa maanta soo shacbaxday warqad ku shacbadaysan gudoomiyaha baarlamaanka taas oo markuu arintii hadda ku celinaayo oo 12 mayl lagu koobay mujidaan territorial waterski 200 mayl ka ahaa waxa lagu bedelay 12 mayl saas u leeyahay marka warkii ayuu sii faahfaahinaa wuxuu leeyahay badda lagu soo koobay 12 mayl badood marka waxba qodobka ugu weyn uu ku dooday waxa waaye wixii baarlamaanku uu 8 October soo saaray wax cusub ku dhacay mujida ma khiyaami u bareereen mise waa khiyaamo qaran ku leeyahay mujida
cadayntana waa tan ayuu leeyahay oo waxay nuqulku waxa ku qoran biyaha inay 12 maal yihiin biyaha xigana 12 maal ay yihiin exclusive economic zone kana 200 maal yihiin mujid marka waxaan rabnaa hadda dadweynaha in Soomaaliya inaan u xaqiijino in baarlamaanka Soomaaliyeed iyo dadkaas aqoon-yahanada qoraalada diyaariyay inaysan waxba ku soo darin 8 ee badda ku difaacayeen hada waliin ku difaacayaan mujid Qaasim Salaah Xasan naftigiisana wuxuu kamid ahaa dadkii taageeray barnaamij caalami ah oo ummadaha muslimka oo dhan maaragtay saxiixay oo isku raacay oo hirgeliyay markii laga reebo dawladda Turkiga Carabta oo dhan isku raacay markii laga reebo Suuriya iyo Suudaan marka barnaamij waxa waaye ma aha oo wax dhiba ay ka imaanayaan ma sida uu yiri wasiirkii kalluumaysiga Soomaaliya maaragtay Professor Ibim marka qodobadii waa kuwana 6 qodob waa kuwana qodobka marka labaad hadaad fiir qodobka saddexaad hadaad fiirisid qodobka saddexaad hadaad fiirisid waxa ku qoran wuxuu qoran yahay sidaan waxa la laalay ama la burburiyay ujeeda waxa la laalay ama la burburiyay dhammaan heshiisyadii ama is-afgaradkii caalamiga ah ee lala galay hay'ado dawladaha dariska ah iyo arrimo caalami ah waa la laalay ujeeda sidaas ka fiican ujeeda qodobka saddexaad iyo shakhsiyaad isla markaana ku saabsan dhanka xadaynta badda oo la gaaray wixii ka dambeeyay 1 bisha Janaayo sanadkii 1991 ujeeda iskale baarlamaanku wuxuu leeyahay waxa waaye wixii ka horeeyay wixii ka dambeeyay macna wixii ka dambeeyay wixii ka dambeeyay 1 bisha Janaayo waa markii dawladdu naga burburtay waay oo US dalkii soo qabsaday kadib inay ku guuleysan waayeen dawladda Soomaaliyeed dhisaan marka wixii alla xeerkii ka dambeeyay 1991 waa waxba kama jiraan ay dhahan mujid now dib ugu laabana marka qoraalkii ay qoraan halka marka waxa kaaga muuqata baarlamaanku inuu yiri waxa la wuxuu tixgelinayaa xeerarkii ka horeeyay 1991 waa tixgelinay laakiin wixii ka dambeeyay wax ma ka jiraan ka soo qaadaya qodobkaas marka wuxuu cadeynayaa in qoraalkan aan akhrino oo ah dawladda ay soo saartay waa kana umaleynaya jamhuuriyadda Soomaaliya waa kan qoraalkii ay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya loo gudbiyay waay qodobkan marka waxa ku cad aan feerina marka okay qodob marka waa akhrisan kartaa qoraalkan hada aragto qoraalkan waxyaabo fara badan ka hadlay laakiin waxaan rabnaa inaan kaliya aan feerino hal meel mujida sharciga ku saabsan badda Soomaaliyeed ee 1988 waxa qodobadiisa la waafajiyay xeerka badda caalamiga ah wuxuuna biyaheena u dhigayaa sida biyaha dalka mujida 12 marka xeerkan inaan fahano waaye waa biyaha dalka Soomaaliya xeerkan waa 12 maal macnihi waxa Cabdulqaasim Salaah Xasan oo idaacadiis waa ka 12 maal waxa waa xamar ilaa la foolay ayaga dhahaan Soomaaliya laakiin xamar ilaa afgooy amal waa hakasokaya waa 12 maal waa because xamar ilaa afgooy xogaa waa ka badan tahay marka waa dhulkaas waa dhulka sida oo macnaha cid kale isu soo geli karin adiga askale baabuur diyaarad wax xamar oo kale xamar qofka soo gala fiisin halwa 12 kaas wixii ka baxsan ilaa 300 maal laga gaarana cid beer ka qodan karta shidaal ka qodan karta ama ka kalluumaysan karta ma jirto adiga ka ahayn marka xeerkaas waa xeerkii 88 dawladda Soomaaliya ay ansixisay daliilkana waa kana because ayaga hadda sida muuqata ma soo sheegin dadka diyaariye qoraalkaana bil xaqiiqatan dad aqoon-yahanaa waaye waxa kamid ahaa Sarreey Guud Maxamed Geeli Yuusuf Taatan waxaana la soo xeeran lagu magacaabo lambar 7 oo lagu magacaabo xubin guud gargaarka badda marka xeerkaas dhaxaya badda Soomaaliya waa 12 maal oo ayada gaar u leedahay oo siyaasad ahaan ay u leedahay
iyo 300 mayl 200 mayl oo dhaqaale ahaan u leedahay way midna waa siyaasi midna dhaqaale labadaas waa caalamka oo dhan arrin oo ku saabsan arrin Soomaaliya kaliya khusaysan maaha oo leeyahay Soomaaliya dhul bixisay xubnaha soo qaatay maaha waana kana in daliilkina waa kana haddaan hayna haddaad rabtid waxaad booqan kartaa website-kan oon uga hadalnay sida hadda ka muuqata meeshaanba badda Soomaaliya uga hadalnay ninkan xayla la dhahaa qoray maqaalkan maqaal dheer waay oo maaragtay tixraacsan tixraale maqaalkaas wuxuu uga hadlayaa arrintan badda iyo wixii lamid ah laakiin waxaan rabnaa inaan dadweynaha tusno in heshiiska Soomaaliya ay saxeexday oo heshiis cusub uusan ahayn halkan saa ka muuqatid meeshan waxaa ka muuqda qodobka 4aad waxaa ka muuqda waan highlight garaysan tahay waa ka halkaas waxaa ku cad Soomaaliya 4 Luulyo 24 Luulyo waxay 1989 waxay saxeexday oceanic law oceans and law of the sea xeer oo qaramada midoobay oo caalamka oo dhan oo conventions waxa way chronological list of ratifications dawladihii baarlamaankooda intay geeyeen chronological list of ratifications mujaddan dawladihii marka waxay kamid ahaayeen Soomaaliya waxay kamid ahayd xeer nagar على حال هلو ها وحير ميغو سو علين كرتا arrin aan ku jiray waxyar labaad nus saac kadib miigu soo celin kartaa igu soo okay halo أنا قرأ هذا أخوتي الأعزاء مركا حوجا يرين دبدها سماع في تلفون كي معنا مركا chronological list of ratifications واسدا سواي مركا دولتي سومالي صحيح كمية وجدان وركان ور معناها أو ساس واي مركا برلمان كوح وكسر دري مجرتو مجدا برلمان كوح وكسر دري هاي راتي مجرتو حركنا واقعنا حركان مركو حوا Soomaaliya saxeexday limits of the territorial sea wuxuu leeyahay every state has the right to establish the breadth of the territorial sea up to 12 nautical miles meeshan inaan muuqdo sa ujeedin kan waxa waaye the territorial sea and contiguous zone macnaha wuxuu ka hadlayaa waa United Nations Convention of the Law of the Sea agreement relating to the implementation of part of convention marka convention kan oo maaragtay dawladda Soomaaliya ka saxeexday waay 1982 saxeexday 1989 kiina maxaa la yiraahdaa waa ay maaragtay ansaxisay waxaan actually taas ay ku caddahay isla barnaamijkan ay Somali Talk warkan ku jira Somali Talk Somali Talk ay ku jirtaa naftigeeda oo way la socotaa arrintan arrin aysan ogeyn maaha waa arrin ay ogtahay waay waana calaamadaynay laakiin hadda waxaa muddo inuu كنا ماشان إن الوجود إن كلام عقاني وحوليه هي وصومالي توكو أنا برنامج كان صومالي توكو وحوليه هي ما ريتي أنا كقراني إنجنير جوي واي إنجنير ما هذه أد معقول واي وحوليه هل كان حركة قرمد مدوي بدها أدونك حركة حركة قرمد مدوي بدها أدونك يونيكلوس وحاي سوماليا سهدي
tobankii December 1982 mujeedaan waxayna xeerkaas u dhaqan gelisay kun 24 luulyo 89 marka ku caday soo mujeedid website kaana waxaan dhahnay waa website ka maaragtay oo Soomaaliya wuxuu laakiin hoos ka raacay waxa hoos ku xun in xeerka badaha adduunka rasmiga uu dhaqan galay 1994 wuxuu kale too halkan ku daray Soomaaliya tagno ku dooda arrintan waana kii hadda ku doodi doonto laakiin waxaan tusaynaa inuusan arrintaas sax ahayn waxay yiraahdeen maaragtay sida highlight garaysan laakiin Soomaaliya waxay ku adkaysatay in 200 mile 12 mile ma ee badda loo yaqaan aaggaarka ee ganacsiga inay ka mid tahay dhulka Soomaaliya number 4 mujida hoosada fiirisid number 4 waxa ku soo baxaysa isla book hadda maaragtay meeshan uu qoran yahay mujida buugan waxa qoray Robert Smith book 27 economic inclusive zone waa kan hadda maaragtay marka يعني waxaan noo cadaatay marka halkaas waxa ka cad in maxaa la yiraahdaa 12 mile uu ka mid yahay xeerarkii Soomaaliya ay saxiixday 1991 ee qaybta ka ahayd Cabdullah Sanad soo wareysana waa soo sheegnay ma aha wax oo lagu soo daray ee wax heshiisyadii baarlamaanku wuxuu yiri wuxuu tixgelinayay heshiisyadii 1991 wixii ku horeeyay oo dhan la saxiixay waa hirgelinay waa taageersi wixii ka dambeeyay oo ka soo qaaday waxba ka mid jiraan xeerarkaas waxa ku jiray in badda Soomaaliya ay sandood ka taagan 12 mile in loo soo gudbi karin oo loo soo geli karin ilaa fasax la'aan 12 mile waxa ka baxsay 200 maalna khayraad ku jiray in cid aan Soomaali ahayn aysan ka macaansho karin waa xeerkaas wax mujida sidaas waana xeerka halkaas ku cad oo baarlamaankuna marka baarlamaanka isku hor imaan marka warkaan uu leeyahay halkaan uu ku leeyahay hal yiraahdaa warkaan uu ku leeyahay meeshan hal yiraahdaa warkaan uu ku leeyahay warkaan uu meeshan ku leeyahay maxaa la yiraahdaa dawladdu ku meel gaarka ah qodobkii badda mujida qodobkii badda hore u soo saareen ku soo daray qodob kale waa waran jirin way haba kimi jiraan way oo war khaldan way mujida waxa intaas dheer wuxuu yiri halkan ka akhriso 12 maal Somali Socialist wuxuu kale too yiri maaragtay farax qare wuxuu soo dalishaday macnaha markii waxa kale too soo dalishaday waa kana buuqi qoray ninkii haday aan soo sheegayni oo ah Robert Smith in soo albo state in waa ninka ku dooday waay oo yiri inkastoo Soomaaliya ay saxiixday heshiiskii badaha caalamiga ah 1988 1982 haddana wali waxay ku andacootaa in 200 maal leedahay wala dhaqmo sida xamar weyn oo kale meesha caalamka oo dhan 12 maal oo xamar weyn oo kale wala dhaqmo qofkii soo kala fasaxo baahay mujid Robert Smith halkan kaaga muuqato wuxuu buug qoray 1986 ayuu qoray mujida dawladda Soomaaliyadana waxaan soo sheegnay oo ay ansixisay xeerkan maxaa la yiraahdaa 1988 ay ansixisay mujida sidii ansixisay marka xeerkan ka dambeeyay ninkaas xitaa markii uu andacooshada sheegay waa intuu san baarlamaanka iswaafajin ka hor waay mujida marka halkaas waxa kaaga cadaatay arrinta ay meesha ku sheegayaan oo dhan inaysan ahayn waxaan kala soo rabnaa inaan dadweynaha Soomaaliyeed la socodsiino in farax qare uusan ay farax qare hadana soo daliishanayaan waxaan rabnaa inaan tusno farax qare inuu macnaha lama daliishan karo sababtoo ah farax qare waxa lagu qabtay isagoo war aan jirin sheegay warna waxa jira war marka waxa jirta marka qaar marka sheegtay
lagu cudur daari karo oo la dhihi karo ninkaas waa ismoodsiye ama waa khaldamay ama naas Faarax Qare khabiir badda Soomaaliya waa nin ka qayb galay waa heshiisyadii 82 iyo kii 88 soo maaragtay ku sheegay isla wareysiyadaas haddana wuu ismoodsiyo warkaana laga duubay ilaa haddana kama aysan saarin halkan ku qoran warka halkaas ku qoran marka muxuu yahay marka halkaas ku qoran wuxuu leeyahay sida halka kaga muuqata adigana waa ka bogan kartaa maqaalkana ciwaankiisa waxa la yiraahdaa maqaalka ciwaankiisa waxa la yiraahdaa Admiral Faarax Qare Soomaaliya waxay ku waayeysaa 97% xuquuqdeeda badda haddii ay haysato haddii maaragtay la tirtiro law number 37 waa kan dhahay 200 maal Soomaaliland haddii la aqbalano ummadaha caalamka iska hor imaaneen 200 maal waxaan leenahay cid soo mari karta ma jirto ilaa afas anaga hesho ama badda ama dad shixnada wata ha ahaadaan xeerarka caalamiga oo dhan aan ka hor imaanayna awala marka waxa la war kuwa ma fiyo baa leeyahay dalalka dariska la ahna dhul ay ku haystaan marka waxa ay sheeganayaan oo waxaas oo kale ayaa la leeyahay war niman fiyo ma halile ninkan hadda laakiin waxa loo haystaa laga yaabaa in la warkaan dhul shay dhul codsanaya deegaan codsanaya waa nin fiican waa in diirada laga laakiin ma waa nin maaragtay qawaaniintii waxyaabihii inta loo fariisto 20 sano laga shiray lagu heshiiyay raba inuu Soomaalida iyo dadka kale caalamka oo iska hor keeno mujid saas hadii xeerkiisa la qaato ma asaga ma raba laakiin waa la iska hor imaanaya mujid waa la iska hor imaanaya because caalamka oo dhan wax uu san sheegan ayaa adigu sheeganaysa marka hadii waxa waaye xooggiina miliki adigu waxa sheegatay aad ku xoojin lahayd marka meesha dhibaato ka imaanaysa cadow fara badan oo abuuranaysa wuxuu yiri marka 12 maal waxa dhacaysu yiri batroolka riigga batroolka an laga qodo xamar maxaa la yiraahdaa dushiisa ayaa laga qodayaa yiri 12 maal hadda aqbashada u fiirsan 12 maal haddii aanan meesha 12 maal haddii aanan la diidi lahayn waxay noqon lahayd in riigga batroolka laga qodo xamar dushiisa meel aad arkaysid haddii aad xeebta istaagtid weeyda kalluunkii in laga dabto ayay noqon lahayd qashinka in lagu shubto ayay noqon lahayd arrintaasi mid la qaadan karo ma ahayn mujida Faarax Qare yiri warkaan wuxuuna ku qoran yahay website article ka magaciisa Admiral Faarax Qare Soomaaliya waxay ku weynaysaa 97% xuquuqdeeda badda haysato hadda haddii la tirtiro law number 37 mujida Soomaaliya tooqay ayaa ka maqaalkaas ka akhrisan kartaa Admiral Faarax Qare warkaas ay yiri mujida marka waxaan rabnaa inaan dadweynaha Soomaaliya u sheegno warkaas war jira ma Faarax Qare warkaas uu yiri war waxa waay uu dhihi karo kaliya qof maaragtay aan xeerarka badda garanin arrintaasna waa ka hadalnay mawduuceena aan dad maaragtay website kan tagtil yiraahdo dawali.com productivity of ideas mawduuca uu yahay badda Soomaaliya ayaan ku qornay mujida waxaan ku qornay marka badda Soomaaliya meesha ku yahay Faarax Qare marka qodobka ku imaanaya qodobkan waay Faarax Qare wuxuu goob joog ka ahaa aan dhahnay mujida Faarax Qare wuxuu goob joog ka ahaa heshiiskan fasalka 6 qodobka 7 faqrada 2 mujida muxuu sheegayaa waa qodobkaas mujida wuxuu sheegayaa in 370 kilometers ama 200 maal ay tahay aaga si khaas ah u leeyahay dalka xeebta leh ma jirto cid aan dadkaas ahayn oo khayraadka kala bixi karta iska daa qashin in lagu qubo xeerkii conventionska United Nations oo Faarax Qare joog 1982 1989 ayaa wuxuu leeyahay aaga sida khaaska loo leeyahay dhaqan ahaan 200 maal 12 maal asagana wuxuu dhahay aan soo aragnay 12 maal hadii la aqbalo waxa waay badda meel u muuqata shida laga qodanayo marka Faarax Qare ma ismoodsiin karo marka waxa halkaas ka muuqata Faarax Qare xeerarkii badda inuu
either inuu san garanaynin ama inuu iloobay ama inuu maaragtay waa yeeloobay oo xooga xusuustiisii uusan si fiican u buuxin iyo waxyaabo kale oo aan la garanaynin saan soo sheegnay hore waxaan u dhahnay anaga qofka ujeedadiisa ma xumaan karto ujeedo fiican u asuusilay dalkii dadka difaacu jiray laakiin wadada uu maraayo iyo wadiiqada uu maraayo ayaa wadiiq khaldana marka in la tusaale loo baahan yahay xeerkan uu leeyahay marka 12 maal hadii la aqbalo bad meel u jeeda riig la soo dhigana batroolka loo qadana xeer saasan ma because xeerka 88 dawladda caalamka maaragtay lagu heshiiyay ayaa wuxuu leeyahay Soomaaliya ay qayb ka ahayd 200 maal ada iskale waxa ku jira ada iskale cid kale oo kugu imaan karta ma jirto 12 maalna xeerkaas uu kamid 12 maal macni waxa waaye ada sig macnaha waxa siyaas ahaan u leedahay عدي مريس وعيني هذا فسح كاهشة لكن لبض بقولوا مال عدي شحنة وضطع ما نكتي سفر أقول كاس مريس يعدي ما نكتي أمانك ضلك عن حرسكو حين إن فسح مباحنا تاسنو حي سهل يساب بيبتانكا إيو ما نكتي إن شراع شذا الدونك أي سهل يساب بعشارة الدونك إن سفي عنه كلا صعوته هدي كلت حدي على هي لباتوين فربنا نعي إن ماشي والبلو يستجيو سبعة ضل والبوليكتو لو تنكاس على جوهر تجاهي وأدونكو لنا على المسرح وعيه موجود marka arinteen hore aan ku laaban marka farxaqar halkaas marka waxaan looga cadaatay ninkii rabana halkan uu sii tagi karaa oo maaragtay qodobkan 12aad u fiirin karaa qodobka 12aad hadaa fiirisid hoos wuxuu ku leeyahay qodobka 12aad wuxuu ku sheegayaa meesha aad ka helaysid macluumaadkan oo ah meeshaan aad ka helaysaa macluumaadka أما واحد سوق قاعدن كرتا كاسة قاعدن كرتا مركا مدرب ماله حد ما عرفت إنترنت كنا مش شقينا مركا حير كاسة كهلي ساعة حير كاسة سوى شقينا إنه حوا حير دبل ماله إنه هذا إنترنت كنا مش شقينا anyway بس كسر أسوأ مركا إلا حد محنوع عدادة مركي إلا حد محنوع عدادة ولا عليهن سومالي توك ماركتي رندي شيء أنا رزح سنين سنين جدا قطب كاسن وصار شيء إنه أو يكون ده يعني مركي حركة أي يكون ده وحاول اللون مثالي سمنا ولا وحدك معها كسو عندي لنا وحين أسفع حسوسنا كي يكون ده عن الجديدة يعني وحاول لبي 8 مال سو ميجي halkan لبي 8 مال ma yeelayeen لبي 8 kan faarax qaran intuu soo sheegay waa soo sheegnay faarax qaran qaldan yahay اللهم صل على محمد marka xeerka Soomaaliya ay saxday 1991 ka hor wuxuu leeyahay 200 maal wax khayraadka badda Soomaaliya gaar u leedahay cid kale oo soo fargelin karta ma jirto in la xadeeyo oo la habeeyeen anaga dan ugu jirta waayo xeerkan la tigsan karnaa hada awood buuxda oo kula dagaalanay milihin markaan xoog yeelanay ciidan aan dhisanayna ciidankaas noo difaacay 12 maalna waa anaga noo gaartay 200 maal ka mid tahay oo siyaas ahaan 12 maal amaanka dalka loogu talagalay markab diyaarad mid bicshaaro wada midan bicshaaro wadin cid soo gali karta ma jirto fasaxadiisu Soomaaliya keeni inaga ma arrin caalamka oo dhan lagu wada heshiiyo faantan malane low number 37 marka halkan kaaga muuqdo low number 37 waa lowga ay Soomaaliya ku doodo way xeerkan waxa halka ka muuqataba aan balaarino 1997 halkan waxa waa 1972 ayuu soo baxay waxa ka dambeeyay san soo tusnay xeerkii 82 Soomaaliya saxday iyo kii 88 ay Soomaaliya baarlamaankeedii iyo golaha ummadda isu waafajiyay ayaa ka dambeeyay fantan malena arinta ay leeyihiin oo ku doodayeen oo dhahayeen xeerkaas inkastoo Soomaaliya baarlamaankeeda isu waafajiyay
وأقبلي لبض بقولوا ماله لقالها إيه لبي توان كماله أمان كي سياسة ولي كما تنازلين أي هذين عدين أي كانان أرنت عشان وصوش شكل وحنا هنا وعتهم واي نوميدهم واي تينو حنسوق هني إنه كدم به إن التاريخ ده هيد نو إن أنا هذا ما سؤالي وأكون سجال بقول استيتني لحدي وها مركز كاس وحكا قاعد هذا الدود أوردن صليرات ملهم أو صليرات لما سلاسوين مركز هدي أسيد tahay waxa cadaatay in qodobka ay ku doodayaan ay leeyihiin khiyaano qaran ayaa laga yaabaa loo bareeray ama la galay oo maaragtay wax jira ma arin khaldan waa arin saxsan ma baarlamaankana wuxuu sameeyay waa wax saxsan ma fahantamaan marka hadda rabaan inuu macnaha wuxuu ka hadlayaa meeshan waxa u dhaxeeya maaragtay farqiga u dhaxeeya territorialka iyo ECC وانا arrintan arrin maaragtay Soomaalidu way ku takhasustay waa min dheer ay wadwaday Allahumma salli ala Muhammad ay isku leedahay dadka iyo dalka ku difaaca laakiin ay dhibaatooyin fara badan iyo cadow fara badan dadku abuureysay arrintan arrin kale oo ka dhalanaysa jira oo u baahanay inaan sheegno qofkii rabo iska akhrisan kara macluumaadkan territorial sig macnaheedu dhul adiga aad leedahay waa dhaqaale ahaan siyaasad ahaan laakiin caalamku dhan arrintaas waa laga tanaasul waa isbaaro laakiin asaga tiyo rabo inuu dhigto وإسكار كأنه وتاوحد لنا يسا أسوق مرة ولا كويس لنا يسا سومالي عالم كسكوه مادن تحس إنه حيوح أقول لي من يسابة هل كين سومالي وين وهقول كان حقوق ولا نحي قبطة اللي ورقول كان حتى حقوق لين بيكوز واحد تكني إسكشي جيتني ذيك حاب إسكتين ضل أو تريترياليست واحد بوسكشي جاي واحد بقى ما خلوا لي مركو حوالي نين معناها أو حواي يعني نين أو مال ورا على ما يعني الإسكالي فأنت مالين marka waa sidaas waay intaan kale oo dhan waa iska macluumaad hore oo muddo dheer diyaarinayay oo asaga kooxahaas ee asaga ka tirsan yahay waxaas waa mid kale tan waan doonayna marka arrintan waa marka wuxuu leeyahay shirkii tamarta ee lagu qabtay Norway mujid meeshas aan calaamadeynay شركة تمرتي اللي وقفت النرويج وحاجة ولا ليالو إني كوعل عليان سومالي توك النرويج إني كوعل عليان وير هذا النرويج وحيربتها والشركة ده سليدي ده تقطعه حيربان كل كسومالي ده بوبان أوكي مركب ماشي وحكم مقتل بوجيلين مكان مقطع محل عيد النرويج actually وحيربتي سومالي ده إني كعاوسو سيدي حدود ده labada boqol oo mayl farsamo iyo aqoon fara badan u baahan tahay lacag fara badan sidii ay u qoran lahaayeen markii maraakiibta ku soo xadgudubto si sharciyada caalamiga loo tigsado inta aan awood buuxda kaga helin in ciidankeenu u difaaco oo markaas ninkii soo galaan la dirno war naga tagana waxana la yaab leh isla maaragtay ayagoo saas ku doodaya in maxal yiraahdaa ay ku eedeeyaan maxal yiraahdaa Norway inay ku eedeeyaan Norway sidaas tiri waxaan rabaa in Soomaaliya ka taageerno inay diidaan Norway markii iyo dalal kale oo reer Yurub markii ay damceen Kenya because dalalkaas dunida saddexaad oo awood u maleynay hawlaha noocaas oo kala badda ay maaragtay hadaystaan iyo aqoonteeda iyo lacagteeda waxooda ma haystaan marka Norway iyo dadka oo ay ka caawinayaan waxay Norway ku eedeeyaan inay saliid rabto inay Soomaaliya ka qodo markii Kenya caawinaysana waxay dhaheen Kenya laga caawinayo oo Kenya la rabaa in maaragtay محل هذا كينيا لرواين ماركتي لا تاجروا دولك Soomaaliya xoog lagu sii wuxuu kala tamarka halkan ka muuqato oo la yaab kale warkaas aan jirin oo soo sheegin inuu soo war jiray ahayn oo barnaamij qiyaamo qaran lagu eedeynay wuxuu la xiriirinayaa dagaalka hadda ay ciidamada Kenya ku soo galeen Kenya أجد شاح قرن قرن أرنت تحقق أكتوبر 16 وحي هيد إن عظمة كينيا أسوق بين حد KNFD وجودها أسوق قلنا سومال وحسكو حرايا مركا هل جنكي سومالي وين أقول KNFD نجمع مكان يكون يلقوا مكان يكمل بدأ يوحنا لهم واحد ولا ربع يوليه هي إن سومالي ما تقول كذا خيرات كذا هذا لبابه قلت هو اللي هيستنى قلت كان كلا لو ترصده وحمر كان نكى عن يرضى أهو عن المرض هولها لسه عنين العرب مستوى العرب يكعنه
وإن أوغانان وهي حركة شبابك وحيابها يكون شقيسة توحان أي أسقوا كماع إنه حركة الشبابية هي لكن ويقول أديجيس وحي تاجيريسا وإكليسا شبابك إني يجين ذاك كلي وهرتاجن على وعلى الألك يبض إذا تقول أنه بوا وحي قرني ساعتان رؤوس الشجني شبابك إني شيء وطن إني ديدين نبض إني ديدين وضحلك إني ديدين صومال إني ديدين النظام يستوى الشذا وهذا هالجيس أحمد المشو كي متكجري أي ديدين كلي تلسيال أي معنى هيهين إن دول نبضة وشباب الله هوسي شباب عبده إيو ماركتي جلجدود مريك إلا حارة غير هذا يقبضان بنتلان يكون جهين إن حيوك ربان يكون قبضان SSC عيني يقول كاسن يقدر صدام سومالي وماركت سومالي لان أي حيوك قبضان دال كورن تدكي ماركت وحاس أي سندو ليان وقوميسي أسوي هذا السومالي قويس كيجرا إن ده يكخرسان عيان هذا يسوي قوميسي أسوي الشباب هو إن ده يكخرسان عيان وحين ده كخرسان عيان وكالتون صوش يعني كيني إن ماركت أقول كذا لقري هل بليون وش ماركت مالك سوق قش ولا فرفري ذاتك أي مرتضى وقارنا ماركت أيو كيني جو لدلي نيني ناكتيس نينك لدلي ناكتنا لقى صودا في ناكل تو ماركت إن باسكيل كفلة عريانة داو كسرعة إنه الصودا في داو دي مركي لسير للديدي حمر ماركتي لا السوق قال أقول كشباب أي كتلسو ولو قري ماشي كبعدين حر دير لو جد بيوصل شباب كي كتريان شباب إني ما عرفت أنت صح